arrimaha gudaha iyagoona u jeediyay digniin. waa kuwan qaar ka mid ah odayaashani oo arintaasi ka hadlaya. dadka carqalada ku haya waxa ka mid ah dowladda dhexe waxaan ka codsanaynaa kulana talinaynaa inay odayaashan oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa eedayn u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya. odayaashan iyo waxgaradkan ka soo jeeda galmudug ayaa sheegay in dib u heshiisiin laga dhaxwado beelaha galmudug ay dowladda Soomaaliya carqalad ku tahay isla markaana waxa ay si gaar ah farta ugu fiiqeen wasiirka kala qaybinta iyo burburinta shirka dib u heshiisiinta qaybta siyaasadeed jooga. waxaan ka codsanaynaa oo sheegaynaa oo aan leenahay gobolka mudug galmudug waxa ka jira khilaaf wax qarsoon maahan muddo sanad uu soo socday shir badan ayaa la qabtay midkii ugu dambeeyay waxa weeye midkii hadda wasiirka iyo xildhibaanadu ay ka qayb galeen kaasoo lagu dhameeyay dhaqankii in la ansixiyay galmudug loona gudbay siyaasadii in la xaliyo hal sano iyo muddo 4 bilood ayaa galmudug dhibaato ku jirtay dhibka ay ku jirtayna dawladda dhexe indhaha bay ka fiirsanaysay madaxweynaha waan is aragnay kal hore markuu Nairobi yimid waana u sheegnay galmudug dhibaato inay ka dhex jirto wuxuuna naga ballan qaaday inuu wax ka qabanayo. sidoo kale odayaashan ayaa waxay ka soo horjeesteen shir lagu midaynayo maamulada gobolada dhexe oo maanta ka furmay magaalada Nairobi waxaana hay'adda CRD oo shirkaani u qabanaysa dadka ku dhaqan gobolada dhexe ay ku tilmaameen mid faragelin ku sameynaysa arrimaha galmudug isla markaana ay ku marti qaaday shakhsi aan wakiil ka ahayn galmudug sidii hadalka u dhigeen. hay'adda CRD oo shir maanta ku qabanaysa magaalada Nairobi oo ku marti qaaday shakhsi aan wakiil ka ahayn oo dadka dib u heshiisiinta wataay aysan u soo wakiilan ku marti qaaday waxaan uga digaynaa inay arintaas ka digtoonaadaan. CRD waxa leenahay waxa ka shaqeysa nabadeynta waxa ka shaqeysa ummadda Soomaaliyeed in la isku keeno waana ogtihiin galmudug in khilaaf ka jiro laba maamul ka jirto waxa xaq u lahaydeen inaad labada maamul u yeertaan haddaad khilaafka aad dhameynaysaa laakiin qayb ka mid ah hadda u yeertaan khilaafka ayaa sii siyaadiseen. shirka Nairobi ka furmay looma dhama bal iska daaye 10% ma hayaan shacabka galmudug ninka ka socda oo magaceeda ku hadlaya Cabdi la yiraahdo 10% ma hayo waxaan leenahay dawladda yogow shirka isaga looma dhama waxaan leenahay Central Somalia oo dhan ogaada looma dhama waxaan leenahay CRD iyo hay'adaha soo dirsaday shirka looma dhama. حسن الشيخ عمر on Cable TV Nairobi.